السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي الشيخ محمد وعن روا صوماليا إن كان الله مانتي مقالة كسمايل ده صوماليا كسمايو أيها براها بلشها markaan dhageysto facebookyada iyo meelahaas youtube-yada waxaa ka buuxa dad shacab Soomaaliyeed oo kismaayo lagu leynayo. Marka waxaan rabaa maanta inaan arintaas kismaayo dadka shacabka Soomaaliyeed lagu leynayo inaan ka hadlo, laakiin waxaan rabaa qaab ka duwan sida Soomaalidu uga hadasho, qaab ka duwan inaan uga hadlo. tusaale ahaan oo kale hadda warkii ugu dambeysay oo aan dhageystay maanta iyo xalay wuxuu sheegayaa nin la yiraahdo Khalid Maxamed suuq yare oo mareexaan oo reer Talxa qabiilka Talxa la yiraahdo oo laf mareexaan ka mid ah, khayr looge laf la yiraahdo kasi ah oo Talxa in lagu dilay xalay miya mise shalay lagu dilay Kismaayo. waxay leeyihiin dadka baraha bulshada ka hadlaya, waxay leeyihiin ogaadeen baa dilay bay leeyihiin. waxaan rabaa marka hadalka siduu u yahay oo saxda inaan u sheego wixii khalada inaan ka bixiyo. ciwaanka meesha aydan kugu soo qoray waxa weeye Kismaayo 20 yaa shacabka ku laaya. haddaba marka baraha bulshada marka laga hadlayo Soomaalida guud ahaan marka ka hadlayaan, khaasatan mareexaanka qabiilkan anigu aan ka dhashay marka hadlayaan, qof kasta oo lagu dilo Soomaali Kismaayo waxay leeyihiin ogaadeen baa dilay. khaasatan mareexaanku waxay leeyihiin qof kasta oo mareexaan Kismaayo lagu dilay mareexaan baa dilay. arrintaas marka anigu saan u arko hadalka saas loo dhahayo waa khalad, mana ahan, waana cadaalad darro, waana been weyn. ogaadeen marka ma laayo dadka lagu laayo Kismaayo, waxa laaya ogaadeen maaha. dadka nasabkoodu ogaadeen qabiilkeeda ka soo jeeda ma ahan dadka Kismaayo dad ku laaya. ama Soomaalida Kismaayo lagu dilo dadka ku laaya Kismaayo gudaheeda qabiilka ogaadeen dadka nasabkiisa ogaadeen u yahay ma aha. mareexaanka Kismaayo lagu laayo dadka nasabkoodu ogaadeen yahay oo Kismaayo jooga ma laayaan. marka su'aashu waxa weeye aniga aad xaq igu leedahay qofka soo imaqlay doono Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed marka yaa laaya hadaan ogaadeen layn. waxaa marka laaya system niman Kenyatta ay sameysteen, dowladda Kenyatta ay sameysteen, Uhuru Kenyatta oo sameystay iyo William Ruto, dad meesha ay geysteen oo ayagu gacan ku rimiso ayagu sameysteen oo Soomaali ah oo hogaaminayaan Professor Gandhi iyo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. macnaha sida waaqiciga wuxuu jiraan haddaan wax loo sheegin wixii la sheega waxay noqonaysaa been iyo cadaalad darro. been iyo cadaalad darrana xal maahane waxa weeye waxbay sii qaribaysaa. haddaba marka qabiil ogaadeen la yiraahdo oo Kismaayo ku laaya ama Soomaali ama mareexaan khaasatan laaya meesha ma joogaan. systemka Kismaayo ka jirana ogaadeen maahan keligiis ma aha. askarta Kismaayo joogtana ogaadeen keliya maaha. haddaad kala jeedaan horta systemkan waxaan sameeyey waa labadaas nin, waa Professor Gandhi oo ogaadeen nasabkiisu yahay iyo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo madaxweynaha Soomaaliya uu dhalay oo nasabkiisu yahay majeerteen uu yahay way, iyo wixii kale ku raacsanaa. fikirka nimankaas iskale Kenyatta ayaga ula tagay, Kenyattuna waa ku aqbalay waka. laakiin sababka loo leeyahay ogaadeen baa ku laaya Soomaalida Kismaayo ama ogaadeen baa mareexaan Kismaayo ku ugarsado ku laaya, macnaheedu waxa lagala jeedaa Axmed Madoobe oo Kismaayo ugu sareeya baa ogaadeen lagala jeedaa. haddaba haddaad taas garatay adiga Soomaaliga guud ahaan ama mareexaan haddaad tahay, ninka ku xiga Axmed Madoobe hadduu ogaadeen yahay reer Cabdullaahi oo reer Warfaa yahay oo haddana uu yahay nimankan la yiraahdo reer Magan, haddana uu reer Xirsi ka sii yahay, soo ma ogid ninka ku xiga madaxweyne ku xigeenka inuu nin mareexaan yahay oo nin reer Xasan yahay oo nin reer Yuusuf yahay.
سوموغي نينكا كوسخيغا نين شيقال انو يحيى او غعما دheera la dhaho mise luga dheera la dhaha adigu ama gacma dheera ama luga dheera mid la kala dhaha garan maayo ama luga dheera ama gacma dheera waa shiiqaal wey waa nin hawiya martiila hiraab ah oo shiiqaal wey ninka afraad waa nin majeerteena oo reebcidyahana oo cali ibraahina oo reebcidyahana oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa wasiirka arrimaha gudaha oo Kismaayo Jubbaland waxa la yiraahdaa Darwish hebel Darwish London tan buu ila joogi jiray aan ka soo hadlayo oo Ingiriiska ayuu joogi jiray afartaas nin ayaa Kismaayo xukunta marka systemkana waxa iska leh ninka la yiraahdo Professor Gandhi iyo Umar Cabdirashiid Al Sarmaake Kenyaatiga dawladuna macnaha way waardiinaysaa ciidanka iyo dhaqaalaha iyo fikirka iyo siyaasadda iyo sirdoonka iyo diyaaradaha iyo taangiyada ayay leedahay iyo wixii kale international community ama bini'aadanka kale oo dawladaha adduunka oo ku raacsan oo badan Kismaayo iyo biriga inay qaadato awalba ayada loo soo diray ileen qoladan Kenyaatiga waxa nagu soo hagaajiyay 220 wadan oo adduunka baa nagu soo hagaajiyay oo inay rabaan dhulkanay badda Kismaayo qaataan dhulkii Soomaaliya qaataan dadka Soomaalida laayaan Soomaalida gumeystaan marka Kenyaatu adduunyada dhan bay wakiil ka tahay Kenyana waxay wakiil ka dhigatay Professor Gandhi iyo ninkii Umar Cabdirashiid Cali Sarmaarke ayaguna waxay wakiil ka dhigteen afar nin waa Axmedoobe oo ogaadeen ah waa Maxamuud Sayid Aadan oo Mareexaana oo reer Xasana oo reer Yuusufa waa luga dheere ama gacma dheere oo shiiqaal ah waa ninkii la yiraahdo Darwish oo ah majeerteen cali ibraahim reer bacdiyahan oo wasiirka arrimaha gudaha labada horena axmedoobe waa madaxweynaha Jubbaland ninka la yiraahdo Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeen koowaad oo Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka labaad oo Jubbaland waa ama gacma dheer ama luga dheer waxaad ugu yartaan baadinka yaqaan ninka afraadna waa wasiirka arrimaha gudaha waa ninka Darwish afartan nin baa marka meesha u sareysa haddaba lama dhaho markii Soomaalida lagu laayay Kismaayo lama dhaho waxa laayay Maxamuud Sayid Aadan lama dhaho waxa laayay Mareexaana lama dhaho waxa laayay reer Yuusuf reer Xasan lama dhaho waxa laayay reer Yuusufna lama dhaho haddana lama dhaho markii dad lagu laayay Kismaayo luga dheer ama gacma dheer oo shiiqaal baa laayay lama dhaho ama shiiqaal baa laysay lama dhaho ama gacma dheer laayay lama dhaho haddana markii Kismaayo dad lagu laayo majeerteen baa laayay iyo cali ibraahim baa laayay iyo reebciyahan baa laayay iyo Darwish baa laayay lama dhaho qof alla qofkii lagu dilay Kismaayo waxa leeyahay ogaadeen baa dilay qabiil ahaan waxaana dilay Axmedoobe marka warkaas war jira ma waa war aan tala baqasha waana been weey waana cadaalad darro weey waana inaan waaqiciga jira iyo sida wuxuu jiraan dadka hadlaya ay waxba ka aqoonin weey haddaba marka jawaabta oo runta ah oo cadaaladda ah oo biyo kama dhibcaanka waxa weeye meeshan waxaa ku soo duulay Kismaayo iyo Jubbaland adduunka dhan baa ku soo duulay waxayna wakiil ka dhigteen niman la yiraahdo Kenyatina waxay wakiil ka dhigteen Professor Gandhi iyo Umar Cabdirashiid Cali Sarmaarke ayaguna waxay wakiil ka dhigteen afar nin Axmed Madoobe Maxamuud Sayid Aadan luga dheer ama gacma dheer ninka la yiraahdo Darwish afartan nin way oo afar macnaha qabiil oo kala jeeda macnaha kala duwan ah oo saddexna daarood yihiin ninna hawiye yahay haddaba marka qofka meesha lagu dilo intaas oo dhan aan soo sheegay baa ka wakiila dawladihii noo soo diray Kenya baa ka wakiila laba Kenya ka wakiila saddex waxaa ka wakiila Professor Gandhi iyo ninkii Umar Cabdirashiid afar waxaa ka wakiila afartan nin oo Axmedoobe ugu sareeyo Darwishna ugu hooseeyo ninkii Maxamuud Sayid Aadan ku xiga luga dheer ama gacma dheerna ku xigo Soomaaliya sida ay wax u jiraan oo waaqiciga jira iyo runta iyo xaqiiqda iyo cadaaladdu waa saas hadalka in saas loo dhigan buu sax ku yahay ogaadeen marka Soomaaliya Kismaayo ku laaya ma jirto Axmedoobe Kismaayo ku laaya Soomaalida ma jirto ogaadeen Mareexaan Kismaayo ku ugaarsado laaya ma jiro Axmedoobe oo Kismaayo Mareexaan asagu qof Mareexaan ku toogtaana ma jiro waxaanu waa maamul waa system way
haddaba marka waa idiin mahmaahaya adinka soomaalida oo reer kismaayaha ah mahmaayo badanoo waxaa jira reer kismaayuhu leeyihiin laakiin mahmaayo adinka adin lahayn ee soomaalida leedahay baan adinka kismaayo jooga macal ogaadeenkiina kulligiin macal mareexaankiina macal shiiqaashiina macal majaritaankiina wixiinoo dhan macal intiina kaloo soomaali ah soomaali kasta oo kismaayo ku nool maanta saacadan aan hadlaya maanta oo 22 December 2020 London UK aan ka soo hadlay Ingiriiska kulligiin wixiina kismaayo ku nool oo Soomaaliya waa idin mahmaahin mareexaankana asagana waan u mahmaahin kaligiisan asna gaar ugu mahmaahin qoladan systemka laga soo bilaabo dadkii dawladaha oo noo keenay Kenya oo ay noo soo dirtay Professor Gandhi iyo Umar Cabdirashiid Cali Sarmaake iyo Professor Gandhi iyo Umar Cabdirashiid afartan noo soo diray Axmedoobe iyo Maxamuud Sayid Aadan iyo ninka la yiraahdo luga dheer gacmo dheer iyo Darwish iyagana ama dhowr aayado Quraan isugu daran ama hal aayado Quraan ayagana ugu mahmaahin ayagana warka waan ugu dambaysin laakiin waxaan ka hormarin mahmaahda Soomaalida waxaan ku xijin mahmaahda mareexaanka aayada Quraanka ama dhowr aayadood kaan rabaan ugu mahmaahin kuwaasna kulligood oo iswata waxaan ku hormarin Soomaalida horta Soomaalidiina Kismaayo ku nool waxaa loo baahan yahay inaad waaqiciga iyo waxa ka jira maanta Kismaayo 22 December 2020 waaqiciga iyo waxa ka jira Kismaayo waa inay say u jiraan inay u fahansantihiin way laakiin dad magaalada ku nooshahay Kismaayo wax ka jira aadan garaneyn ama agaarkeeda ku nooshahay magaalada wax ka jirana aadan garaneynin hadda waxa weeye qof aan macnaha inuu hadla xaq u lahayn ama in wax laga weydiiyo Kismaayo xaq u lahayn baad noqonaysaa sababtu ma garanaysa waaqicigaad ku nooshahay haddaba marka waxaan kala jeeda aan idin balbalaariya marka aan idin tafsiira marka aan idin cadeeyo aan idin qeexo waxaan ku mahmaahin Soomaalidiina Kismaayo ku nool maanta saddex ayeeyo oo aan la kulmay oo Soomaali ah oo waaqicigi marka taagnaa ka hadlahayo aniguna Ilaahay ila kulan siiyay baan yaan warkii ay ii sheegeen ayaa idin ku mahmaahaya saddex ayeeyo maana saddex islaamood oo waayeel ah oo ayeeyina oo aan la kulmay weeye macnaha waaqiciga marka jiray ka hadlayeen marka say u hadlayeen iyo sida adinka Soomaalida u hadlayso aad u hadlaysaan hadda Kismaayo ku nool ayaa isla ka ekaaday macnaha oo waxay warkiinu wuxuu xasuusiyay markaan baraha bulshada ka dhageystay saddexda ayeeyo oo Soomaaliga ah oo Soomaaliya aan kula kulmay marka saddexda ayeeyo waxay dhaheen iyo waxaan ka maqlaa idin sheegi ayeeyada ugu horeysay waxay ahayd 76 waxaan joogay Caawdaq 76 waxaan jiray 10 sano ninkan Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed waxaa degmada Caawdaq lagu toogtay subaxdaas saddex nin oo Saleebaan ah qabiilka Saleebaanka oo habar giirka oo caadadiga nin bay dileen reer dalal ah macnaha reer diini ah reer dalal laftaan ka si farmaajo laftiisa bay dileen meel Itoobiya u dhaxaysa Caawdaq bay ku dileen oo buur ah oo geelay bay ahaayeen macnaha geeliyo aan dhac isaga darmaday marka geelay ku dirreen saddex nin bay isla kaligiisa waa dileen waa la soo qabtay waxa lagu toogtay marka 76 Caawdaq islaam baa ka marka waa yeela markii nimankii aanu maan aadin nimankaas maan aadin laakiin suuqayga iska cayaarayay markii dadkii ka soo tageen soo daawaday nimanka markii la dilayay ayaa duq waa yeela oo lugaynaysa baakada magaalada bartankeeda suuqa weyn oo Caawdaq way lugaynaysaa marka waxay leedahay Ilaahay oo mareexaanka naka dhig mareexaanka mid Ilaahu ha ka reebin Ilaahu mareexaanka huf iyo qaraban ka dhig Ilaahu mareexaanka kulligood maanta laabay leedahay marka ilmo yar baan ahay waa iska daba socdaa waa dhageysanayaa markay cabaar ku haysay ayaan qosla marka way igu soo jeesatay marka way soo cayrsatay waa ka carrada cunug yar oo 10 sano jira miya isla waa yeela gaaraysa maalin horta maalinkaas ay ahayd macnaha maamadan waa yeelka waxay u leedahay Ilaahu mareexaanka nag ka dhig mid ha ka reebin maanta dabcan Saleebaan bay ahayd madaxweynaha Soomaaliyana waa mareexaan nimanka la dilana waa mareexaan magaaladan Caawdaq la joogana mareexaanka ugu badan saasay maamadu mareexaanka ugu dhagantaa marka
واسباب كهذا أدين كصومالي كسماي شوكت وقاعدين يحمدوا ودقنتي واساس تاسين لمعناتها أي يدي الله بعد waxay ahayd ma qaan bishii afraad bishii shanaad 9kii cali qofkii xamar kala yaqaan baan garanaya xaafadii halwadaag cali ayaan ka soo lugeeyay ninkaygaan waxaan rabaa inaan caasi ka raaco siidka taalay siidka ayaa rabaa inaan abawr caasi ka raaco ayayaan ka doo marka waxay ayaduna leedahay ilaahu maraxaanka ibr ka dhig nag ilaahu maraxaanka dhig mid ha ka reebin huf iyo qarwal maraxaanka Allah ka dhig waa daba socda marka laakiin ninka de marka nin weyn baan 24 sano jira markaan xoogaa daba socday maamadii ayay i dareentay socodkayga markaas igu soo jees markaas waxaan ku wareey ma jabhadii USC ayaa wax laga laayay marka waxay tahay orayga jabhadaada ma qaan USC daade waa ku celiya hadana waxa ku ayeeyo ma jabhadii baa ya dagaal galay iyo askartii military ma diriray adigu su'aalaas markaan ku soo celiyay markii dambe in ay gacan qaadan ka baqay waa ka carar waa iskaga tagay baskaygii baa iska raacay anoo sii qoslay macnaha maamada sayidka hoosta ku haysta maraxaanka Allah laayana bisha afraad meelaha 9kiina waaqiciga jira wali wadankii madaxweyne Maxamed Baraka marka maadaama wadankii madaxweyne uu ka yimid Maxamed Barre wax alla wixii ka dhaca wadanka oo qofku dareemo dabcan waa inuu marka maraxaan Maxamed Barre isku dhuftaa labadaba waa arinta hadda waxa la mid ah qof kasto lagu dilo kismay ogaadeen baa dilay Axmedo baa dilay waxay la mid tahay maamadan lugeynaysa sayidka agtiisa lugeynaysa dalcad uga daba oo ku haysa maraxaanka nag Allah ka dhigo mid Allah kama reebo siyaab ila Maxamed Barre wadankii madaxweyne ka ah ayayidii saddexaad waxay tahay ayayii indhala oo 9kii dhamaadkiisii safarkii aan maalin dhow idin kaga sheekeynay oo aan xamar kaga tagay oo dhuusam reeb ilaa xamar aan 4 bilood aan lugeynay marna tagay dhuusam reeb marna aan iimaanay jawhar iyo mahday iyo xamar agti aan iimaanay oo noqonay oo wadada aan wardeynay waxaan ku soo arkay magaalada la yiraahdo Buula Barda tuulo u dhow oo la yiraahdo Garasyaan waxa la yiraahdaa ha Garasyaan baa la tuuladaas tuulada Garasyaani ayaan ayeeyo indhala oo meel buul yar ku jirta ayaa anoo gaariga ku dhex jira waxa askari isbatoora oo i waardiinay wuxuu igu yiri mid askari ahaa sonkor ugu jira qariirad ugu jira ayuu ka soo qaatay duq indhal oo waayeel oo waabkaas ku jirta waan soo degay asaga iyo wixii kale ay waardeeyeen waa ila soo daba dageen wariya baalka kolayga sokorta ku jirto waatid u dhiibaan ku askarta kolaygu buu tuuray soo qaado waxaan ku reey ayayada uge dhowr xabo igu rid aniga oo agtayda lugahay agtiisa laba dhowr xabo ku dhuftay ma qaan laba xabo iyo afar xabo waxay ahaan askarigi laftigiisa marka iyagii ba qoryo u cabaysto waxaan ku reey faraha ka qaadan ninkan iska dah wariga adna xabada iga jooji baan ku war ninkii isbatooraha iyo aniga waxaan qaadnay qariirka sonkorta ku jirtay ayayadii indhaha la baan u geynay ayayadu wax ma arkaysa anu marka hore in indha qabtay markaan u galnay bay tiri assalaamu calaykum bar calaykum assalaam wax ma arkaysa waa indhaha tiri maandhow waxaan ku reey qariirkan qabso maxaa kugu jira sonkor bay ugu jirtay wax kale miyuu ka qaatay askarigan ma wax kale ma qaambato xogaaga sonkorta buu iga qaatay waxa ku wax kale ma ka maqay ma wax namar miyuu kugu dhuftay miyuu kugu gacan qaado ma waxba iyo ma gacan qaadin waxaan ku marka ay raali aho arintan waa ka xumahay askarigaana ana hadda shaqo ka qabanaya raali iska aho ayaydo qosto waxay ugu reey waxaan ku sheegin askarigaagan ila hadlahayo waxaan ku sheegin inaadan ahayn ciidankii ninkii magaciisa sheegi maayo ninkii markaa Buula Barda haystay oo gaashaano sar ah magaciisa hadda ma sheegahaye Allah u naxariisto waxay tiri ninkaas ciidankiisii ma tihida xagee baad ka timid aniga igu leedahay anigan Cabdishaal Sheekh Maxamed waxaan ku ayay xam waasa u sheegtay ninkaas anu ciidankiisa kamid xamar baan ka yimid dhuusam reeb baan u socdaa waxay tiri waan gartay ayayadaas indhahala u fiirso ayayas indhahala
waxay kala garanaysaa dadka dhaqankiisa ay kala garanaysaa ciidankan buulo barda deganaa iyo ninkaygan safarka xamar ka tegey ninkan wuxuu ka tirsan yahay sonkorta ka qaatay askariga iyada waayeelka ah markaa waa agos wey waa markaan usii socday dhuusamareeb waa agos bilowgii 90kii wey 1990kii waxay garanaysaa midha dhowr jeer hore midha alaaba ka qaateen waxay garanaysaa askarta buulo barda soo u dhaqmi jireen bay garanaysaa ninkaygan ka celinay inaan wadankan ku cusbahay oo dhaqankaygu ka duwan yahay bay garanaysaa waa ayay indhalacde ima arkaysa xataa waa indhalada kiisan korka qaatay ma arkayso anna ima arkayso laakiin waaqicigay la socotaa adinka raagsmaya marka ayayadaas indhahala ayaa waaqiciga idinka og oo idinka taqaana adinkoo indhihiina qaba waaqiciga Kismaayo ka jira maanta December 22 ma garanaysaan mana fahansanidin sida ayayadaas indhahala ay u fahansan tahay askariga sonkorta ka qaatay xogaaga ugu jira kiiska iyo aniga ka celinaya inaanan isku ciidan ahayn isku dhaqan ahayn waxaa la rabaa marka maamada indhaheeda ma shaqeyn laakiin maskaxdeeda shaqeynaya waxaa la rabaa qofka hadduusan indhaha taa wax ka arkayn qalbigiisa iyo maskaxdiisa inay shaqeeyaan adinka marka reeksmaaya waxaa la rabaa maskaxdiina iyo qalbigiina inay si fiican u shaqeeyaan oo sida ayayadaas indhaha ay u kala garanayso dadka iyo ficilkiisa iyo dhaqankiisa inaad kala garanaysaan waxaan ka wada ogaadeen tashaday oo inta ku tashaday Kismaayo hal laayo Soomaali ama Mareykan hal ugaarsan yiri ma jiraan dhaqanka Soomaalidana saas maahan ama ogaadeen ha noqoto ama qabiil kale ha noqoto waxaad saala kuugu filan ugaaskii cawliyahan ugaas qorane oo cawliyahan waa jifada ugu badan ogaadeen oo jubooyinka daga ama Kenya iyo inta u dhaxaysa Soomaaliya daga ama ilaa iyo mataqaanay gaar afgooye daga waa cawliyahan haddii tira la yiraahdana cawliyahan iyo reer Maxamed Suweer ba ugu badan ogaadeen ugaaskoodii guud cawliyahan ayaa xamar ka hadlayay waxaan hadda bil ama 20 cashan ka badnay oo systemka ka jira Kismaayo oo ay noo keeneen mataqaanaa adduunyada dawladaha adduunku oo Kismaayo oo Kenya u soo dhiibteen oo Kenya u soo dhiibatay Professor Gandhi iyo Umar Abdirashiid Cali Sharmaake oo ayaguna 40 nin aan sheegay u soo dhiibay ayuu ka dacawoonay Kismaayo ayuu kaga cararay xamar buu joogaa ogaadeenka marka tiraahdan ogaadeen ba Kismaayo Soomaali ku laayay ama ogaadeen ma Mareykan Kismaayo ku warsada ku laaya ugaaska cawliyahan ugaas qorane waa ugu horeeya ilaa waa ogaadeenku waa nasaba ma ahan 4 nin oo Kismaayo joogta ma 4 nin oo Mooryaana oo dadka laysan ogaadeen lama dhaho ogaadeen waa qabiil Soomaali ah oo waliba qabiilka Soomaali ugu fara badan ah haduuna koow ahayn laba ah oo shanta qaarad ku nool weey waxa marka la yiraahdo ogaadeen ba ku laaya Soomaalida Kismaayo ama ogaadeen Mareykan ku ugaarsada Kismaayo warkaas war jira ma waaqiciga jirana war macnaha xaqiiqo ah ma aha waa been iska qayaxan weey oo waaqicigana ka fog aad uga fog weey ayayas indhaha marka baadinka raagsmaaya waaqiciga idin ka taqaan tusaalaha labaad markii xamar 9 ay xabada ka bilaabatay December 31 markay bilaabatay 9kii oo xamar qof walba xamar isaga qaxay macnaha waxaan rabaa inaan idin taabsiyo qofku waaqiciga haduu la soconin dhibaatada ku dhacaysa niman la yiraahdo ma jeerteen ba waxay yiraahdeen anagu SDF baan nahayo US sida anaga kicino xamar ka qaxmayno oo anaga iyo SDF iyo US waa soconaaba Mareykanku ha qaxeen ha carreen iyo siyaabare ayaga la leeyahay anaga ma jeerteegna la taaban maayo ogaadeenkuna waxa dheen afgooya waa soo soconaayo Umar Jaas baa qabsanayo oo ma taqaan la socdo caydiida nalayn maayo Mareykanku ha qaxo ha iska carreen iyo dhul baahantaha iyo nimanka iska tageen warsan girid iyo leelkasayo daarood kala ha carro wiilashii qoryaha wato US markay xamar qabsadeen qof alla qofkii daarood ay arkaan oo ma jeerteen ugu horeeyaan ogaadeen madaxay ka toogteen iyo dhul baahantay iyo warsan girid iyo leelkasayo Mareykan cid ka sab
ayagoo qaxayay naga daba yimaadeen oo gadan noogu yimaadeen majeertaankii iyo ogaadeen ku hayay mataqaan cumar jees kismaayo markaan soo galay baar eer maalinkaan soo galay mise maalintii ku xigtay ayuu soo gala asagoo cararaya maxamed cumar jees oo la soo cayrsaday iyo misaa bara abtuu ahaayo asagana maxaa la oran jiray maxamed sheekh la oran jiray maxamed aw cali la oran jiray oo bahgiri ahaa oo saabar walaashi dhashay ayagoo cararaya bay baar eer maalinkaan soo galay miyay soo galeen mise hal maalin baan ka soo horreeyey ayagoo kismaayo u socda ugaas cumar baa yasiidaya maraxaan taaban kara male yaan lala hadlin nimankan haddaa marka majeerteenkii ogaadeenku waaqicigii soomaaliya ka jiray markaa ma ogeyn intoodii ku hartaan sheegay intoodii ku hartay xamar intii soo qaxday oo majeerteena iyo ogaadeena kama hadlahayo iyo wixii kaloo daarooda iyaguna isaga haray oo marka dadka muxuu majeerteenkii iyo ogaadeenka iyo daaroodkii meesha ku haray xataa maraxaan badan baa ku haray maxay u harayaan u leeyihiin annaga mataqaan nala taaban mahayo qaar waxay leeyihiin SDF baan ahayn iyo SBM waa kuwa jabadaha fikirkooda qabay qaarna waxay leeyihiin haddii saa bara tago annagu shacab baan nahay oo madaxweyne kasoo qabsada waa noo madaxweynaheeni laakiin ma oga ama sida ninkaygan xoogaal u ahay oon ilaa iyo kismaayo iyo xamar aan 4 bil u lugeynayay wadada marna xagga u sii qaaday marna xagga u soo qaadayay oo waaqiciga jira uu yahay cunug yar oo qori wato oo 15 jir 20 jir ilaa 30 jir oo waxa lagu xulo socdo la arag waxa loo sheegay tahay daaroodka aragta madaxa ka toogo hawiyaha aragta madaxa ka toogo dirtaad aragta madaxa ka toogo raxaweyntaad aragta madaxa ka toogo nimankan kale oo leeyahay beesha shanaad aragta madaxa ka toogo oo qofka aragta dil la yiri inay arrintu tahay ma oga dadkan waxay leeyihiin ma taqaana waa madaxweyne hadduu iska tago madaxweyne kale qabsanaya baan annaga yaan la joogaynaa anigu shaqaalaan ahay oo ciddii dowladdii qabsan u shaqaynaya wuxuuna saas ma ahayn mooryaan qorya wadata oo qabiil lagu soo cabeeyey bay ahaayeen oo qabiil lagu soo burogaraameyey oo qabiil loogu soo qodbeeyey oo qofkaad aragta dil aan ciddaad ahayn laga soo dhalciyay ahay haddaba sida waaqiciga markaas majeerteenkii ogaadeenkii iyo daaroodkii xamar ku haray oo mareexaanku xataa qaar badan ay ku hareen saysan waaqiciga ula socon oo midub markii madaxa laga toogto u soo cararay ayaadiina soomaalidina kismaayo ku nool maantay 22 December 2020 adina waaqiciga kismaayo ula socon waxaan tegaynaa marka mahmaahdiinii adinka waa saddexdaas ayeeyo baan adinka Soomaaliya ku mahmaahay maraxaankaan tegaynaa maraxaanka waxaan u mahmaahayaa oday nimankan isaaq ah ama reesha isxaaq la yiraahdo oo Liverpool iyo Cardiff ka tagay Ingiriiska oo qurbaawi ahaa 40 sano meelaas oo waayeela oo ragga maraakiibta ayaa wuxuu ku noqday baadiyii uu ka yimid adoo ama burca iska dheh ama hargeysa iska dheh ama bali gubadle iska dheh iyo nimankii arab meesha degi jireen geeli baadiyaha oo markuu yaraa ka soo tagay cidiisii buu u tagay waana oday waayeel oo hadee almost 50 sano 40 sano 30 sano weeraan Liverpool iyo Cardiff badmaax ahaa oo dadkan maraakiibta raacay ahaa laba marka dhalinyaro ayaa isqoonsaday meeshii ku dagaalamay marka waxa marka gardaran mid caata oo tawar lahayn baa gardaran haddana nigis ma leh marka waa la diriray ninkii ka xoog weynaa oo awal laga gadarnaa ayaa adkaaday awal qayd yar buu iska guntanaayay markii dagaalkii bilowda qaydkii ka dhacay asagii oo mataqa iska qawan bahdan laga sii adkaaday odaygii marka waa qoslayo wuxuu yiri reer maamada maraxaanka waxay ku socotaa kismaayo jooga iyo kuwan baraha bulshada ka hadla Facebook iyo YouTube ka hadla bay mahmadan ku socotaa wuxuu yiri odaygii isaaq wuxuu mahmahayaa kii gardarnaa wuxuu yiri reer baadiye wuxuu yiri tabar male akhlaaqna male nigisna male buu yiri mar kale idinku celiyo maamada maraxaanka wuxuu yiri odayga isaaq oo qurbaawiga oo kismaayo ka tagay Cardiffna ka tagay Liverpool ka tagay oo baadiyaha tagay wuxuu yiri markii laga adkaaday kii awal edab darnaa akhlaaqda xuma markii laga adkaaday oo haddana tabarta xuma oo hadee nigis kala ahayn oo nigiskina ka dhacay oo la qaawiyay wuxuu ku yiri kaagan tabarta xun leh oo reer baadiyaha wuxuu yiri reer baadiyaha tabarna ma leh akhlaaqna ma leh nigisna ma leh
hadda adinka mareexaanka marka ugu horeysa si fiican uga hadli maysaan baraha bulshada markaad arrinta Kismaayo ka hadlaysaan iyo dadka Kismaayo Soomaalida lagu laayo guud ahaan markaad ka hadlaysaan ama gaar ahaan mareexaan Kismaayo lagu laayo markaad ka hadlaysaan oo nimankan afarta ay ku laayaan markaad ka hadlaysaan horta si akhlaaq leh ugama hadashaan waa su'aasha waa qodobka koowaad waa reer baadiye akhlaaq ma leh meeshii laga yiri wey si macnaha asluubaysan oo waaqiciysan oo akhlaaqaysan oo nidaamsan ugama hadashaan si aan tarabaqashaad uga hadashaan waa kow meeshii tabar ma leh uu yiri odaga isaaq oo ku yiri ninka reer baadiye tabar ma leh waxa weeye ama meesha adinka Soomaalida oo dhamaantiin meesha ku nool Kismaayo saddex maado kala doorta isaga qaxa meesha haddaydin ku nabad galeen oo afartan nin Axmedoobe iyo Maxamuud Sayid iyo luga dheere gacma dheere iyo darwish aysa idin nabad gelineen oo hubtaan inay dilayaan meesha ka qaxa maxaad u fadhidaan meesha idin ceshanaysa aada waa qodobka koowaad qodobka labaad ayaga fikirkay wataan iyo barnaamijyadooda iyo waxaan ay gaalada iyo u soo dhiibteen Kenyaatiga iyo Professor Gaadi iyo Umar Cabdirashiid la qaata oo waxay qasanayaan la walaaqda aakhiraba ilaahay hayda cadaaba ma taqaano cadaabka Allah idinku guro hadaa rabtaan be waa qodobka labaad qodobka saddexaad dagaalama oo wax iska celiyo oo hadaad xataa si guud wax iska celin weydaan ninka markay u cadaatay in la dilayo la soo aaday qorigiisa inta qaada hal iyo laba iyo afar wuxuu dili karaa asna la dilo laakiin sidii maata caana leh maalba inta leedin qowraco ina hadana baraha bulshada soo fariistaan hadana iska cabaadaan oo aan tarabaqash iyo matag iyo hunqaaca sii deysaan waxaasoo dadnimana maahan xigmadna maahan caqlina maahan raganimana maaha maxaa soo haray reer baadiye tabar ma leh akhlaaqna ma leh nigisna ma leh waxaa la rabaa markaad hadlaysid hadalladu qaar waxaa ku jira sida nigiska oo kale ilaa meelahaas oo kale in ilaa heerkaas la gaaro oo kale aan loo baahnayn oo macnaha wax lagu hadla oo bara bulsho looga hadlaan ahayn waxaa ka mid ah gabar baa la kufsaday reer hebel ah oo ina hebel hebel ah oo jilib hebel hebel ah oo hebel hebel la dhalatay oo hebel hebel dhashay oo hebel hebel u qabo oo hebel hebel adeerkeed aabaheed yahay waxa lagu hadla mala waa nigis mala wey macnaha hadallo waxaa jira hadalka afka inuu soo baxo aan loo baahnayn oo macnaha wax dhagaha laga qabsada oo macnaha lagu mataga oo la labaca wey gabadha haddii la kufsado ilaahay baa aakhira ka xisaabinaya ninkii dad u xigana hadduu yaqaan ninkii saan u galay isaga yaqaan si ula xisaabtamayo laakiin bara bulsho inta la soo fariisto gabar inta ma taqaanaa loo abtirayo marka ma waxaa u taraysaa mise sharafteedii iyo nolosheedii adduunka ayadoo nool baad duugaysaa maalin dhaweed maxaa idiin sheegay dhowr beri ka hor maxaa idiin sheegay gabar Soomaaliya anoo safiirka Talyaaniga soo bixinaya xamar gabar Soomaaliya oo aan weydiinayay jabhadii USC kuwa reer baadiye macawiso wata meelahan ma ku soo artay inta soo lugeynayay oo igu tiray askari hay kufsan baa idiin sheegay macnaha gabadha Soomaaliya in marka xilligaas waxa weeye waa xilli qofku ama nin ama gabar hadalka ugu horeeyo ku weydiinaya dad qori wato oo ku arko hay dilin wey marka gabdhaha Soomaalidu in shan xab wajiga loo rafto oo dhimato iyo in la kufsado waxaa kun jeer u daran in la kufsado sababtu sharafteedii iyo qiimaheedii ayaa dhulka ku dhacaya marka adiga u abtirinaya gabadha ma waxaad u tartay mise ayadoo nool baa duugaysa ma hiil baa waxaas marka ma raki celin ba ma qabyaalad ba ma ahan waa mahmaadii ninka isaaqa oo u mahmay laga reebaadiye akhlaaq ma leh tabarna ma leh nigisna ma leh anu nin raga waxaan u aqaanaa ninkii reer buraale waa la Fariisa Xuseenta anu aan ka dhashay kamid ah waa hal nin kaliya oo reer buraale ah ninka nasabkiisa wuxuu nin reer buraale waa la Fariisa Xuseen kamid ah
wuxuu la diriray caawdaq iyo wardheer dhexeeda buu urur etoobiyaan keligii la diray waa keligiis oo qori ah kaa wata keligiis iyo qasnadiisa buu laba nin baa mid wuu ka cararay keligiis baa inta la diriray buu weliba wuxuu ka laayay tiro aad u fara badan asagiina waa dileen anuu ninkaas nin baan u aqaanaa waxaan kaloo nin u aqaan nin ciraaqiyaan ahaa oo 700 oo askari Amerikaanka magaalada Baghdad kaga dilay waa hal nin keliya oo askari ciraaq ahaa oo qori inta u qaatay mataqaan qoryahan mataqaanaa leh mataqaanaa sniperka ay qaataan dadka meel fog wax ka toogta oo indhayaha inta loo gashado meel fog wax laga tooganayo ayuu keligiis baa 700 buu dilay 700 oo askari ayuu dilay mise waa 800 ba 700 ilaa 800 inta u dhaxaysa baa hal nin dilay anuu ninkaas nin baan u aqaana haddaan nin raga tahay oo Kismaayo ku nooshahay nimankan afarta oo gaangiska Axmedoobe Maxamuud Sayid Aadan luga dheera gacma dheera darwiish ogaadeenna matalaan maraxan matalaan shiiqal matalaan majartay reebciyahan matalaan hungurigoodi iyo calooshada matalaan afar gaangis weey waa criminal gangs weeye waa 12ka al-Jazeera ku jirta oo markasta u mahmaaha bay kamid yihiin kuwaas aan xukuma Professor Gandiga ayaga sameeyay ba al-Jazeera 12ka jawa kamida ama sida ragaas wiilka reer Buraal iyo wiilkaas Carabka Ciraaq ah ama wax iska celiyo oo xalaanin wax iska celiyo ninkii gurigiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo naftiisa loogu yimaado adba hal qof waa dili kartaa oo gaangiskan ku soo direen ama laba waa dili kartaa dil annaha lagu dilo ama meesha isaga qax ama nimanka wuxuu aakhira seega aakhiraba Allah ku cadaabay jahannaba Allah ku geeyo darabte ayaga la qaso laakiin nimankii wax la qasan maayo kana qixin maayo iskana celin maayo markii la dilaa waxa la dhahayaa nin reer hebel Soomaali ah ayaa Kismaayo lagu dilay ogaadeen baa dilay nin mareexana ayaa Kismaayo lagu dilay ogaadeen iyo Axmedoobe baa dilay waxaas waa antara baqash warna ma war ninna ma war gabarna ma war qof xishoonayana ma qof waaqiciga ka hadlayana ama waaqiciga yaqaalana ma waaqicigu waxa weeye ogaadeen Kismaayo Soomaali ku laayana ma jiro Axmedoobe Kismaayo dad ku laayana ma jiro markii la joogay maamulkii Tigreega Ethiopia ninka la yiraahdo Cabdi Ilay jeel ogaadeen marka lagu leeyahay ogaadeen dadka ogaadeen ah oo jeel ogaadeen dad ogaadeen ku laaya ma jiraan Cabdi Ilay oo ku laay ogaadeen jeel ogaadeen ma jiro waa system niman Ethiopiana oo la yiraahdo Tigreeg barnaamij milisanawi dajiyay Cabdi Ilay iyo wixii liyu booliskuna ayaga ninkaas shaqaale u ahaayeen mushaar buu siin jiray ayagana amar buu siin jiray qofkaas hala soo xiro oo nasabkiisa ogaadeen yahay xabsiga hal la geeyo hal la dilo indhaha laga bixiyo dhagaha la gooyo carabka la gooyo qoraha la gooyo hal la dilo hal la dhaawaco gacan hal la gooyo asaga amarkiisa ku mushaar buu siin jiray amarkiisa ku shaqayn jireen waxa marka jeel ogaadeen samaystay ogaadeenna maahan Cabdi Ilay maahane waa milisanawi Tigreeg weey sida ay wax u jiraan waa saas waxaad kala garan laadiin system iyo waxaad kala garan laadiin qabiil system iyo waxaad kala garan laadiin qof marka Kismaayo maamul baa ka jira ajaanib keensatay oo Kenyaati ah oo taangii diyaaradii Kenyaati ah oo Professor Gandi iyo Umar Cabdi ay macnaha wakiil u ahaayeen ayaguna afartan nin oo Axmedoobe iyo Maxamuud Sayid Aadan luga dheera gacma dheera iyo darwiish ay wakiil uga dhigtaan waa maamul marka waxaan maamul weey ma ahan qabiil ogaadeen la yiraahdo ma nin Axmedoobe la yiraahdana ma waa afar nin oo maamul meeshan la keensaday weey haddaba waxaa dhahdan qof Kismaayo lagu dilo maamulkaas dilay meesha dhahaya afartan nin magacoodana ku dara mana Axmedoobe kaliya macna ninkaas gaar haw calaamadinina marka ninkan saddex nin baa yaa meesha ugu hooseysa waa inaad tirahdaan afartaas nin baa dilay qofkaas ama dadkaas meesha ku gumaaday 10ka 20ka 30ka sida cadaaladda ama saxda ama waaqiciga waa saas way dhowr boqol oo nin oo askari oo gooboyn joogta oo mareexana ayaa waxa soo kixiyay Prime Ministerkii mareexanka ahaa reer diiniga ahaa reer uga sharmaaka ahaa reer shirwac ahaa cali shirwac ahaa reer Muuse kasi ahaa waa Prime Minister Abdiweli Sheikh Ahmed Sheikh Maxamed
asagaa gacanta u soo geliyey axmed madoobe, asagaa gacanta u soo geliyey maxamuud sayid aadan, asagaa gacanta u soo geliyey luga dheere gacmo dheere, asagaa gacanta u soo geliyey darwiish raggii asaga ahaana sida laga sheegaya baraha bulshada wax yar baa ka nool, wax cararay iyo wax ayagu laayeen bay ahaayeen. ma sheegaysaan oo ma dhahaysaan qofkii lagu dilo Kismaayo oo Soomaali ah, baramsarkii Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Sheekh Maxamed oo reer diini oo mareexaan oo reer waa sharmaako reer shirwac baa dilay dhihi maysaan. ilaa systemka wuxuu kala watay uu dadkii u sacabinayba markii la sameynayba waxaan oo Jubbaland la sameynayay waxaa u sacabinayo la mid ahaa odagan reer Axmedka oo la yiraahdo ma taqaanaa waxaa la yiraahdo Qoryooley Khaliif Qoryooley oo Qoryooley degmada Qoryooley waagi dawladda maxaa baraka ahaa gaashaana saraha ka gudoomiye degmada 8 sano ka ahaa oo mareexaan oo reer Axmed dhuumaal general dhuumaal oo hadda Kismaayo ku nool ayaa systemka ka mid ahaa markii Jubbaland la sameeyay. baxawaadlo oo mareexaan oo reer diiniha ka mid ahaa oo reer siyaadi reer warsama baa ka mid ahaa. reer Axmed oo Xuseen Yuusufa oo Khalaf Xuseen ano Sheekh Xuseen hal dhashay baa ka mid ahaa oo hogaaminayay ninka la yiraahdo Khaliif Qoryooley iyo ninkan Jananka oo la yiraahdo ma taqaana muxuu magaciisi dhuumaal. ma dhahaysaan Soomaalida lagu laayay Kismaayo waxa wax ka laayay niman la reer diin oo baxawaado lafa baa laysa dhihi maysaan. reer Axmed baa wax ka laayay dhihi maysaan. reer Xasan baa ku jiray oo hogaaminayay Maxamuud Sayid markii maamulka la sameeyay wilna taageersan reer Xasan baa laayay dhihi maysaan. maxaa marka ogaadeen tuka cambaar la ka dhigay, maxaa Axmedoobe tuka cambaar la ka dhigay, maxaa dambi ogaadeen kaligiis uu sagalin ee mareexaan iyo reer diin iyo reer Xasan iyo reer Axmed la galeen, maxaa ogaadeen kaliya dusha loogu saaraya. dambigii xiirane iyo ma taqaan Khaliif Qoryooley iyo general dhuumaal iyo wixii la halmaala iyo Cali Madoobe kii jaajuuska Cali Madoobe oo reer diini oo reer siyaad oo reer Maxamed Siyaad oo nuurbida adeerka u ahaa jaajuuska ugu weynaa oo la socday ma taqaana dadkii Jubbaland markii la sameeyay ugu horeeyay ahaa oo baxawaadlaba ninkii meesha keenay ahaa general Cali Madoobe. maad sheegtaan sheegi maysan adinka Soomaali intaas oo Soomaali dhan saas kulligood meesha waa lagu dhamaa Soomaali waa lagu wada dhamaa maamulka Jubbaland. annaga mareexaan intaas noogu jirtay baxawaadla ku jiray reer Xasan baa ku jiray waxaa ku jiray nimankan la yiraahdo reer Axmed baa ku jiray. talxaana dhowr inay kaga jirto oo Cabaas ku jira waa laga yaabaa laakiin talxa si dhiib leh hoosan uga warqaba qabiil ahaan iyo maamulkooda iyo systemkooda baan ka warqaba iyo ragga xukuma. barnaamijkaas dhowr qof baa kaga jirtay qabiil ahaan shuqul kuma lahayn. haddaba marka waxaad rabtaan inaad noo soo fariistaan baraha bulshada noo soo fariisataan oo noo sheegtaan system adduunyadu samaysatay oo Kenya u soo dhiibatay oo Professor Gandhi Umar Cabdishii wakiil ka ahaayeen oo Soomaali dhan ku jirtay oo dir ku jirtay oo daarood ku jiray oo hawiye ku jiray oo raxanweyn ku jiray oo nimankan la yiraahdo beesh sanaad ku jiray in wax alla wixii Kismaayo lagu dilo oo Soomaali ogaadeen dusha loo saaro. wax alla wixii Kismaayo lagu dilo Axmedoobe gacanta ku dusha loo saaro. warkaasuna war jira ma war cadaaladana ma war alla ka baqana ma war waaqiciga la socdana ma ama dadka kulli wada sheega qabiilooyinkooda iyo magacooda iyo masabka hayeen sheega sida xiirno kale hadda aan u sheego kale Cali Madoobe kale hadda aan u sheego kale Khaliif Qoryooley aan u sheego kale Janankan liira dhuumaal aan u sheego kale Maxamuud Sayid aadan aan u sheego kale fartaag oo kale ragga noocaas oo kala ah oo systemka ku jiray waxay rabaan qabiilka rabaan ha noqdeen ayaa dadka meesha lagu laayo ayaa laaya laakiin ogaadeen kaligiis ma laayo Axmedoobe kaligi ma laayo. maxaa marka maalin kasta been aan gedmaynin waaqicigana aan la gedmaynin wax jiran aan ahayn aad baraha bulshada oo soo fariisanaysan adinka Soomaali ah guud ahaan gaar ahaan ciidan aan ka dhasho mareexaanka. haddaba Soomaaliya waa beec diinteeda beeca dhulkeeda beeca dadkeeda beeca badeeda beeca hawadeeda beeca birigeeda beeca laakiin Soomaali laba u kala baxeen. qof ilaahiisa ka baqaya aakhiriisa ilaashanaya dhulkiisa ilaashanaya ana iska dhulkayga iyo diinteeda iyo dalkeeda ki iidaya dhahaya iyo qof intii loo sheego oo lacaga
ama intii loo sheego kursi iyo mansaba qaadanaya, diintiina gadanaya, dadkiina laynaya, dadkiina gadanaya, dhulkiina gadanaya, badiina gadanaya, biri gadanaya, xoolihii gadanaya, beerihii gadanaya. waana kulli Soomaali wey, kulli waa Soomaali. qolada diintoodii iyo rabbigoodii iyo rasuulkoodii iyo dadkoodii iyo dhulkoodii iyo badahoodii iyo birigoodii wardeysanaya waa Soomaali, qabiil bay leeyihiin. dadka diintoodii iyo dhulkoodii iyo dadkoodii iyo badoodii iyo birigoodii iyo hawadoodii iyo diintoodii iibsanayaan kulli Soomaali iyo kooda buuxaan. waxa marka dambiga Soomaali ay wada galeen oo Jubbaland ku wada galeen, wax ogaadeen marka gaar loogu saaro oo tunka cabaar looga dhigo ama shaabad looga dhufto, ama wax hadda ma taqaanaa ninkii la oran jiray muxuu ahaa Cabdi Ilay iyo jeel ogaadeenkii uu samaystay ninkii leeyahay Mille Sanaawi iyo ay samaysteen Tigre, wax ogaadeen loo saariyo iyo in Ilay la dhaho ayagaa samaystay aniga iyo muuqato. jeel ogaadeen Jigjigana waxaa samaystay Tigre iyo ninkii leeyahay Mille Sanaawi. Kismaayana waxaa samaystay international community-ga ama dowladaha ma taqaanaa adduunka oo kale oo noo soo dirsaday. Kenya wakiil ay u tahay iyo Imaaraadka. Professor Gandhi iyo Cumar Cabdirashiidna wakiil u yihiin, ayaguna 4 nin wakiil ka sii dhiteen hadday yihiin Professor Gandhi iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sarmaarke. marka meeshu waa maamul, waa system wey. qofkii lagu dilo oo Soomaali iyo qofkii lagu dilo Maraxaana systemkaasaa dilay. Axmedoobe madaxweynuhu ka yahay, Maxamuud Sayid Aadan wuxuu ka yahay madaxweyne ku-xigeen koowaad, luga dheera gacmo dheera wuxuu ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad, ninka General Darwishna wuxuu ka yahay wasiirka arrimaha gudaha. sidaasay wuxuu jiraan, ama saas waxa loo sheego ama ha la iska aamuso. maxaa ii soo haray oo idinka ballan qaaday inaan aayad quraan ugu mahmaaho marka 4 nin oo wakiilka ka ah ajaanibta dhulkanaga iyo badanada Jubbooyinka inay qaataan, Soomaalidana ma taqaan ay gumaystaan, waxna laayaan, diinta islaamkana ka bedelaan oo gaalaysiiyaan. nimanka 4 oo wakiilka ah waa Axmedoobe, Maxamuud Sayid Aadan, luga dheera gacmo dheere iyo General Darwish. aayadan quraanka dhageysta. qaala tacaala wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. aakhira markii la too ilaahay la hor istaago, qof walba wuxuu shaqaysto buu leeyahay. marka haddaad dadka dilkiisa sii badin lahaydeen, haddaad iska dayn lahaydeen, haddaad ka toobad keen lahaydeen, markii ilaahay hor istaagtaan qof walba miisaanka loo saarin wixii u soo baxana ilaahay cadaalad weeyo, kaama dulminayo. wax xasanaad shaqaysatay, wax dembi aad lahayna ilaahay dusha kaa saari maayo. marka adinkoon aabihiin iyo hooyadiin iyo xaaskiin iyo carruurtiin aan cidna asxaan u samaynaynin, qof Soomaaliyan asxaan u samaynaynin, Maraxaan asxaan u samaynaynin, adinku ilaahay markaad hor istaagtaan cadaabkiina waa muuqdaa, jannadiina waa muuqataa. aakharana 2 daar baa ka jirta, meel kale kama jirto. waxaa ka jira meel yiraahdo naar iyo meel yiraahdo janno. marka halkaas ilaahay baana gartaas qaadahaya. gar bin aadan qaadahayo ama gar malaa'ig qaadayso ama gar jinni qaadaya ma, ilaah baa gartaa qaadaya. marka maalinkaas iyada ah haddaad go'aansataan in naaru jahannama aadaana adinka idiin taala. haddaad go'aansataan inaad janno aadaana adinka idiin taala. maantaadna haysataan, aad nooshihiin baad haysataan doorashada. markaad ilaah hortaagantihiin oo qiyaamaha la joogo doorasho ma lihidin. ilaahu janno igee adoo naar samaystay, shaqaystay, adduunya ku shaqaystay, ilaahina kaa yeeli maayo, cidna wax ku weydiin mayso. malaa'ig baa inta lagu dhiibo lagu laalaadiyo sidii furaha iyo moolka saada u laalaadisaan mar gacanta idinkugu jiro, ka sahlan inta laydiin laalaadiyaan naarta jahannamo madax laydinkugu tuuray, ama jannada madax laydinkugu tuuray. marka adinkoon waxba cid u samayn asxaan, adinku camal fiican oo aakhira janno ku tagtaan samaysta. haddaad camal xun samaysataanna naaru jahannamaad aadaysaane hadhow waxba qoomama idinku tari mayse. aniga hay haaraamanina Cabdirashiid Cali Sheekh Maxameda, waxba hay haaraamanino, hay xagxaganino, wejiga hayga xagxaganino, waxba hay habaarinina, oo waxba aniga hay haaraamanina. anigu afkayga gacantayda anaa iskale. wixii aan aakhira shaqaystana ilaahay waxaan ku talagelaya inuu iga xisaabinayo. intii aan dhowran karana waa dhowran afkayga gacantayda. maamada indhaha la 80 jirka markay lahayd niyow ciidankii joogay Buulibarda kamid ma tihid markay lahayd, waxaan ku xisaabtamay san hadda u hadlahay iyo waxaan hadda aaminsanay baan markaas ba aaminsanaa. August 1990 magaaladii tuuladii Buulibarda u dhaweyd oo Garaasane markaan taagnaa
saan hadda u fakarayaan u fakarayo aakharadayda wixii anigu aan geysto oo afkayga ka baxa iyo wixii adinkayga ka baxa ilaahay inuu aniga aakhara iga xisaabinahayo ayaan ku xisaabtamayey welina waa ku xisaabtamahayaa ilaahayna waxaan ka baryay inaa saas nafta iga qaado anoo saas aaminsan oo afkayga gacantayda wax aan janno aan ku galo inaan ku aadanahay waddadii jannada anoo saas isku qaba oo saa u shaqaysanaya ilaahay inuu nafta iga qaado laakiin aan cadab ku shaqaysanin hadalkayga iyo ficilkayga haddaan aayadaha idinku badiyo inay saakiin dhex qasmaan baan ka baqahaya ood kala garan weydaan laakiin intaasaan halkaas aayad baa idin diinaya afartiina waana idinku filanta soomaalida imaqlaysa kuwa imaqli doonaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin adduunyada iyo aakharaa badaneh yaan adduunyadan yartaa waxba lagu jaha wareerino inta adduunyada laisku ilaawo aakhara markii la tago faramarnaan iyo ilaahu adduunka ii celi oon loo soo noqonayn yaan lagu cataabina hadeertaanba qof walba intaad nooshahay aakharo u shaqayso saad naar kaga carar lahayd jannana u geli lahayd ilaahayna hortiisa aadan ugu cudoobi lahayn ilahayna raalli kaaga ahaan laha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wamaqfiratu wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wamaqfiratu aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed